kadib shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Muqdisho danjiraha dawladda Mareykanka u fadhida Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa haweeneyda lagu magacaabo Linda Greenfield Thomas oo Muqdisho soo gaartay wafdi hogaaminayso ayaa kaga hadashay xaaladaha abaaraha ee Soomaaliya lacago dheeraad oo Mareykanka uu ku baritaarayo arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee Soomaaliya ay ka wadaan iyo kulan ay la qaateen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo qayb ahaan looga arrinsanayay xoojinta ammaanka dalka iyo howlgallada military ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya. Today I'm proud to announce over $40 million in additional funding from the United States to Somalia to save lives and meet humanitarian needs. This is in addition to the 1.3 billion that we've already provided. maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in ka badan 40 milyan oo dollarka Mareykanka kaasi oo dawladda Mareykanka ay ugu talagashay in lagu kaabo miisaaniyadda gargaarka ee Soomaaliya iyadoo lacagtaasina loo marsinayo hay'adda USAID lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed oo ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay gobolada dalka Soomaaliya waxaana lagu kabay lacag dhan 1.3 bilyan oo dollarka Mareykanka oo goorsii horeysay Mareykanka u qoondeeyay lacagtani oo laga soo ururiyay dadka Mareykanka loona soo marsiyay hay'adda USAID waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo xaaladaha bini'aadanimo ee abaaraha Soomaaliya nafaqo darida carruurta iyo haweenka iyo adeegyada aasaasiga sida caafimaadka treat severe malnutrition in women and children and combat the current outbreak of deadly diseases like measles and cholera. Miss Linda ayaa ugu baaqday beesha caalamka inay sii kordhiyaan taageeradooda ku aadan gurmashada dadka Soomaaliyeed oo abaaruhu ay saameeyeen. Geesta kale waxa ay faahfaahisay kulan ay la qaadatay madaxweynaha dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulankaasi looga arrinsanayay arrimaha ammaanka iyo taageerada dawladda dalka Mareykanka. I had the opportunity to follow up with the president on a meeting that we had in Washington during the African Leaders Summit. We had a very intense discussion about the security situation and his strategy to address the security situation and how we can sidii loo heli lahaa istiraatiijiyadda ku saabsan amniga iyo sidii aan gacan uga geysan lahayn sidoo kale abaaraha qaabkii loo maareyn lahaa waxaan ugu hambalyeynaa dawladda federaalka Soomaaliya ee shacabkeeda dadaalka dhinaca amniga sidoo kale madaxweynuhu dawlad dhisidda iyo horumarka Soomaaliya ka socda ayaan ugu hambalyeynaa to assist. And I congratulated him on his efforts at state building. Muddo 15 sano kadib waa markii ugu horeysay wafdi heerkan oo ka socda dawladda Mareykanka uu yimaado Soomaaliya xilligaas oo dalka uu soo gaaray wafdi hogaaminayay John Kerry wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka tani ayaa muujinaysa kororka ku yimid xoogaysiga xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ay la yeelanayso dalalka caalamka. Ali Abdulqaadir Ali warbaahinta qaranka Muqdisho.